حاشا لله يدلك قد حكو ليدهاي إساقاد حرمين يوكهيدي مالحلال باهي إساقاد حرمين يوكهيدي مالحلال باهي. بسم الله الرحمن الرحيم. برنامج كان عن وقت لأنه تاريخ دا سوماليا يحلقي سوماليا أي سومرتي عن برنامج كان عاوة قيبتسا هوريتو عن كسو قادم دونا تاريخ نرولتكي حليمة صوفي يا تاريخ دي أي سومرتي سوماليا سؤاله بدن أيان ويدين دونا حليمة صوفي إنكستو أي كميدة هاي دادكي حرنمة سوماليا أسوه الجمي أهنا أبوان وين أو سوماليا هدبا سؤاشا وهريسا حليمة أن جعلها إن أنا عاو كويديو anigoo hadalka si kaftan ah kugu dhiibayo goorma ayaad dalatay aad baad u mahadsan tahay Faisal waxa weeye waxaan dhashay 1929kii waqtigee ayaadana bilowday in aad suugaan hal abuurto ama aad ku luqayso ma aan garan karno waqtigaas da'dayda waxay ahayd 10 jir mana aanan lahayn qoraallo iyo macnaha ثقافة dadkeenu laha ma jirin oo dalkeenu gumaysi buu ku jiray marka tabanjir baan ahaa wallahi waqti dheer buu ahaa haddana qof gaboobay baan ahay xusuustana waa dareemi kartaa inay iska lumi karto inta badan laakiin anigu suugaanta markaan bilaabayay islaan ayeeyday oo hogaamisa ah baa gurigeeda la isugu imaan jiray markaasaa raggu sheekayn jiray waxay ka sheekayn jireen Axmed Gurey Sayid Maxamed iyo iswaysi wax la yiraahdo markaa aan dhageystay aaraadoodii iyo Soomaaliya in la qaybsaday oo dal lagu qaybsaday markaa wixii aan ka garanayo waagaas horta waxaan bilaabo waxaan u horeysiyay qaybsashadii Soomaaliya دور بيد أنك حسوسنا هي شركي برلين الله بابي بشيرة أو شركي برلين الله بابي بشيرة شركي شنت بها ويستي الله بالله شركي بهو ذاك تا يوروب غاتي بريا واح بدري أفريكانا بقورتو يدي ديسنايد إتوبيو إنا ينباد بعدين كوما باللاين بلالي قيسيقي عدكي سوكو بايعتامي أنا الله وحنبرياها يا عدسيقان بانديقاي إلهو موتكي إيقاباتي وابرية انتي بودريقا يارو كعايان دالكا بحصداي إليسكي أحمد قريشي دهان سيحان أبدا كيس إليسكي أحمد قريشي ديبان سيحان أبدا كيس أم حرم مركو إريادي ولا ودوغا مركي عرين كأم بادنا دونكم مغل دولكي باو هنتي دايي الماضي أوغا أرض الحباشين وهو أنا دونو كعي أردادي قورتو أفلحيا ودكي أتالي ودنك أرض الحبش بلدي هجري واغاس أقول يا هنولي سيدكي اللي هي يقين سيدكي إنجليز لقالاي ويرردي أتكا سيد كان في يوقع أنا ودي سواحو لهارين سيدكي إنجليز شبشاليوكو في أرح ذاتشاري هالكو ديغاي أدوبكي باهاي ويلالياري أركين وإسويل هالكا مركا هالكين كالكا بران أنتريو انتاسان كحسوستان هاي يران تيدي أشياء كالتو أن ربو إن أنكويدي وحي تاي سيدة تاريخ دا وبدن سوماليا مركان تاريخ بدن سو أخريو سوماليا بدنا وحا تاريخ دا كسر يسنتهي إن استعمار يقولي قد اسكسور جيدين حتى أنتو سارا كسو قاتو ودن كدرس كلا سوماليا إتوبيا سوماليا مدة بدن أي اسكده بشقين أيين قرنيدي هوريتو ولي قد بغرتوين با إتوبيا كجرين سوماليا ولي قد ويستوى سعودين marka taariikhda Soomaaliyeed waxaan ku maqlay inuu jiray nin la oran jiray Imaam Axmed Gurey ku magac dheer ninkaas maxaa taariikhdiisa kala socotaa iyo muxuu ahaa iyo Soomaali muxuu qabtay iyo halkuu ku dhashay taariikhdiisii Axmed Gurey wuxuu ahaa nin Soomaaliya wuxuu ahaa nin geesiya wuxuu ahaa nin waxgarada
wuxuu ahaa ninkii la galay amxaaro dagaal, wuxuu ahaa ninkii ay awood u waayeen inay dab shitaan oo cunno ku karsadaan oo markaas kasbay inay ceeriin cunaan. ceeriinka ilaa haddeer ay cunto amxaaradu waxaa kasbay Axmed Gurey. wuxuu ahaa nin Soomaaliya oo wadaniya oo taariikhiya, wuxuuna u dhashay Jigjiga. xilligii gobonimada iyo wixii ka horeeyay Soomaalida ma ay jirtay wax qoraal ah, far ama hab ay wax u qorto oo ummadda ay isku afgarato. gobonnimo doonkii waxaanu wax isu gaarsiin jirnay markii horena af baanu isku gaarsiin jirnay iyo sudcaal, rakuubo, fardo iyo dhoof. markii dambana ilaahay raallaha ka noqda Cismaan Yuusuf Keenadiid ayaa wuxuu soo saaray fartaasaana lagu xoreeyay dalka. ayadaanaanu ku xoreynay meel walbana ayadaanu ku gaarsiin jirnay wax. inta la qoro oo laga dhigo qardhaas weyn la jaxaaso baa gabar loo dhiibi jiray oo la oran jiray waxaad geysaa Dirdhabe, waxaad geysaa Hargeysa, waxaad geysaa Bari, waxaad geysaa Kismaayo, waxaad geysaa meel kasta. marka gabadhaas hebel u gaba la dhihi jiray, hebel bay u geysaa, hebel wuu garanayaa, wuu furanayaa, halkaasuu kala soconayaa wixii la soo amray iyo wixii laga rabay iyo wixii u fulin lahaa. marka sidaasaanu wax isu gaarsiin jirnay, fartaasaanaanu ku xoreynay. farta Cismaaniyada la dhihi jiray bay u qornayd waa sidaan. farta Cismaan Yuusuf Keenadiid baa alifay, sameeyay. markaan ku qoro waan garanayaa waa ba, ta, shin, ha, kha, del, ra, sin, shin, ga, da, ain, fa, qaaf, kaaf, laam, miin, nuun, wow, ha, ya. shibanaheedu wuxuu ahaa 21 xaraf. waa ba, ta, ja, xa, kha, del, ra, sin, shin, ga, dha, cayn, fa, qaaf, kaaf, laan, miin, nuun, wow, ha, ya. waxaa jira marka shaqalkeeda oo shana waa a, waa i, waa u, waa o, waa e, a, i, u, o, e. ay u qorayd waxaa weeye shibanaheedu xarfaheedu waa ba, waa ta, waa jiin, waa xa, waa kha, waa del, waa ra, waa sin, sha, ga, dha, cayn, fa, qaaf, kaaf, laan, miin, nuun, wow, ha, ya weye. markaad tirisana waa 21 xaraf. shibanaheedu waxaa weeye a, waa i, u, o, e, a, i, u, o, e. intaasay ku dhan tahay. xarfo badan bay lahayd, xisaab bay lahayd, wax kale lahayd, laakiin xisaabteedii haddeer ma garanayo. fartaasaan ku xoreynay dalka, waxna isugu gudbin jirnay. isgaarsiintayada ugu badan isgaarsiinna waxay ahayd aanu wax isku gaarsiin jirnay fartaas. maadaama Soomaaliya xilligii xornimada ay ahaayeen dad gobonnimo u dirir ah, haddana dad badan oo Soomaalida ka mid ah ay u hureen dhiigoodii, maalkoodii iyo nafsadoodii. haddaba Soomaalida markay qaadatay xornimada sidee ayay qushuucooda u muuqday? Soomaalidu markii ay qaadatay xorriyadda aad bay farxadoodu siday ugu midaysnaayeen gobonnimo doonka iyo hanashada yay ugu midaysnaayeen. farxadoodu ugu midaysnayd gobonnimo doonka. shantii Soomaaliya
oo la qaybsadayna suud koodii luuliyo ayay qaadan lahayd xorriyadda daakhligii 10 sano markaynu soo gudubno ingiriiska ka hormariyay dana gaarana ka lahaa in uu waqooyi siiyo 4 hameen ka hor gobonnimo doonka saxada gobonnimo doonku calan ciidda laga taago shanta Soomaaliya Hargeysa ugu horeysay hameenkaas niman badan talyaani ah baanu islaynay intuu yiraahdeen seexda baanu niri habeenkii aan seexan jirnay ma aha caawo markaan gobonnimadii qaano dareenka iyagu sidoo ahaa iyo farxadayadu siday ahayd iyo Soomaalinimada iyadu siday wax naga maqanayba adduunka inay jiraan hadda markaad leedahay waxaan idhi ilaah baa calanka noo taagan nagu caawimay cirku eegyahay oo cinda Allaahi buu ka yimid bartii saacad baa kufriga ciishayo cadilan waynaan mahad u celina casiiska wayn ilaaho calanka noo taagan oo caafimaad ku waar cadow lagu didiyay nimankii ku cuni lahaa caninaad noqoto cinda Allaahi bay ka timid cirkaad u egtaayo kufrigii calool xumaa allow cadowgaga iyo casiyo dhan jabe filiyo wayeelba waataynu firiirsanayn oo filiyo wayeelba waataynu firiirsanayn farihiyo daakhilkaba gaalo wada fadhiday farxad inogama horrayn juuya furitinkeed fayoobidiis calanka Soomaaliyay fakara markan halka marinayo ayaan dardaaran sameeyay Soomaalidii loo dhiibayay dawladnimada oo niri madaxda Soomaaliyeed ay misiligi midigta laydin surwadankeena meheradiis waxaad midna siisan macashka yaga madaxda iyo dawladan min yar oranaya masaakiintii dhulkiyo matayaanu nahay miraha wadankeena miilaanu qaybsanaa meelaan joognaba dhulka waa macaansanaa melejantiyo maraakiba nagaga colos nasarada malabsanaysan madluunka nahay midigta laydin surwadankeena meheradiis waxaad midna siisan macashka yaga haddii aan dib ugu laabto mar kasta oo gobonnimada loo dirirayo ama laga hadlayo qarnimada Soomaaliyeed ama qaran ama bulsho waxaana meesha marnaba ka maqnayn in ay dadka abwaaniinta ah ay sameeyaan waxyaalo murti leh oo dadka qeyro gelin kara ma jirtaa wax sugaan ah oo xilligaas aad sameyseen ama aad ka xasuusatid oo haddeertaan aad noo soo tabin karto waxaan ka xusuustaa waqtiga gumaysigu markii aan gobonnimada doonaynay iyo markii aanu helnay intaba wuxuu nagula jiray lugooyo marka intuu si u qaybiyo xooga Soomaalida oo isku duuban ayuu wuxuu bixiyay lacag wuxuu siiyay niman wuxuu yiri qabiil kamid ah qabaa'ilka Soomaalida wuxuu yiri laaya rag Soomaaliya oo magaalada joogay lacag badanna uu siiyay way shireen markay shireen bay waxay yiraahdeen haddaynu nimankan Soomaalida layno meeshoodii waxay noo soo galayaa waa cadow iyo gaalo ka sisaysa markayaynaan yeelini aynu samayno Soomaalida aynu leegada xoojino ayagaba xoojino lacagtii bay qaybsadeen waxaa loo bixiyaa taariikhdaas gaala jabiye abgaal reerka la yiraahdo markaasuu maalintii dambe wuxuu yiri intuu meel walba faysta ka dhigay waa inaad kala socantaan qoloba meel u baxdo ummadii baa isku meel ka baxday shiribkay shireen ay shirbi jireen waxaa ka mid ahaa derbiya daabac saartaye tii ku damaysa soo damo talyaanigii bay ku leeyihiin saacadan sabti waaye seefta saanu siibtay waaye Soomaaliyaan salaamayna markii la kala baxay xaawo firin gabar la yiraahdo uu qaracmay isku meel baa loo baxay marka ummadii uu kala socma yiri hal far bay noqotay xaawo firin baa buraan burtirisay ay leedahay
talyaani waa waashay oo waa wareersan yahay oo wabaradu waanin jiray weer cad bay xirteen oo wariiglay nimanka joogaa warkiis ma gelin wataday subiyeen baa wadnuhu la go-ay oo waa waryari inuu wareegaa wadada walbaba firin bi kugu yaryayo fiishadaha ka cararo waxaadan filanaynin rabbigay ha kugu furfuro adoo fakaraya talyan oo furdada ka dhoofo adoo Soomaaliya filanaya lagu firee marka suugaan badan oo sidaasa bay ahayd waxay ahaayeen dadku dad aad iyo aad originaal ahaan u fiican Soomaalinimadoodana ilaalsada marka talyaani maantaas ku khasaarayo mid baa boona gareesaha oranaya markaasuu lacagtu ka qaadanaya markaasuu wuxuu u imaanayaa sirtii u keenaya Soomaalidii gobonnimada dhibaato badan baa loo maray gabdhaha gaalada waxay u raaceen say u xoreeyaan dalka sirta say u keenaan kuwa lagu laayay kuwa u dhintay laakiin taariikhda Soomaalida waxaanan uga dheeraanahaynin walaalo taariikhda aadan arkan qaxootiga ka yahay oo muura qaxootiga ka yahay oo timiracu kaas qaxootiga ka tahay ma ahan hididilo wax leh ma aha maxay leeyahay qofka taariikhda leh waa in Soomaalidu dadka inuu uga duwan yahay way waa raggi cabdi shaqaf iyo aadan cartaniya raggi lagu xukumay cimrigooda talyaani intay laayeen baa waxa lagu xukumay cimrigooda habsi inay ku jiraan kismaayo timiracu kaas gabadheeda waxay ku dhashay xabsiga dhexdiisa aadan cartan iyo cabdi shaqaf baana kaga dhaliyay ninkeedina xabsiga ku dhintay intay askartii bariyeen bay yiraahdeen dhala noo jiriye markay foolatay xabsayna ku jidaa dhaladii bay labadaan nin ku jeexeen gabadheeda Agost la yiraahdo dad quraati bi quraati walaalooba oo gacanta isqabsada oo isla jira waxaan ku jira wax ku kala maaha islaamka sheegana dadka islaamka sheegta quraaya ma oo aan ruuxay kala midmi karo oo kala soomi karo oo kala baay karo ilaahay baa ku dhaarinay dalkiina waa aragtaa siduu yahay oo noqday oo ilaahay ka baqa oo isqabsada oo isqabsada oo isla jira ma hadli karo aniga raalli ahaada ilaahay ka baqa qabiil carab lagu maqalay way u taramale way ma yahay dadka ka tagtay ilaahay ka baqa qabiil wax ma taray isku sunnati isku diin baati waxaad yeelaysaa ilaahay ka baqa isbarashada aniga ma hadli karo xurriyadan dhib badan baa loo soo maray dad badan baana u lumay aad baan uga calool xumaadaa ragga sidaasa dadka sidaasa muure Soomaalidu qabiil ma lahayn Cabdullaahi Ciise markii la yiri hala dilo oo hala sumeeyo talyaani muure ninkii yiri buu ahaa aniga u egay Cabdullaahi intii la sumeyn lahaa aniga hala sumeeyo oo isagii la sumeeyay oo awlaadii kaga gubatay halkaas oo awlaad dhalinin marka dadku dad qabiil aaminsan ma ahayn dad qaran aaminsan bay ahaayeen laakiin gumaysigii baa nooga adkaaday oo ku subtay oo qaybiyay taariikhda cad aan uga jeedo adigana aad ka mid ahayd dadkii guwaabada Soomaalida siinay waxyaalo badan aad goobjoog u ahayd sida tusaale ahaan markaan soo qaato dawladii daaqiliyada ahayd dawladii shacabka ahayd iyo dawladii dambeete ee militariga ahayd haddaba maxaa wax qabadkooda ay ku kala duwanaayeen dawladaha soo maray Soomaaliya iyo hababkii ay u kala shaqeynayeen ama maxaa Soomaalida jabkan iyo burburkan iyo dhibaatadan aan dhamaanin daba dhigay meesha ay wax ka qaldan yihiin maxaad is oran kartaa wallahi walaalow ama eedow dawladii shibilka ahayd 9 sanadood ayay haysay dawlad tabar yar bay ahayd dawlad waxay ahayd ku mintiday nabadgelyada iyo dastuurka waad garan kartaa dad aan weligood dawladnimo soo qoray gumaysi haystay oo madaxa laga garaacay koritaanka dawladnimo waa wax weyn buu rabaa
anigu waxaan ahaa dadkii mucaaradka haddiiba la kacay oo mucaaradka ku noqday laakiin maskaxdu maalinba maalinta ka dambaysa bay qaan gaaraysaa maalintaa waxaa ii muuqday haddii labo xorriyad heshay see saddexda maqani u maqan tahay maa inta la yaaco calanka laga dultaago baa ii muuqatay dhaqaalaanan ka fakerayn ciidamaanan ka fakerayn siyaasad baanan ka fakeraynin aragtidayda intaa ahayd halgankii dheeraayo aanu soo marnay baan waxaan muraayad ahaan ii hortiin in shanta soomaaliya xorowdo isu timaado marka laakiin dowlad fiican bay ahayd dowladdii aadan cabdille cismaan baa hoggaan u noqday madaxweyne markaan runta kuu sheego wuxuu ahaa soomaali nadiifa oo wadaniya oo xalaala oo aanan xaqiraynin ee wuxuu yahay baanu sheegaynaa aadan cabdille cismaan 5 sannadood buu hayay laakiin dowladda markay dhalatay soomaaliyana la yaqaan adaygeeda gumaysigii ka tegay daaqaduu ka soo noqday isku dir buu waday ka daba shaqayn buu waday duminteeduu waday rag adag baa haystay markii runta loo hadlo cabdirashiid cali sarmaarke allah u naxariiste daa'uud allah u naxariiste waxay ahaayeen hogaamintoodii markaanu aada ugu faraxsanayn marna dowlad dimuqraadi ay ahayd oo xalaal ah xisbiyadu dowlad aan xisbiya lahayn mucaaradayna horta maba dhisanto baan aragti ahaan qabaa marka annagu markaanu wax ka sheegno mucaaradku wax ka sheego khaladkeeda dowladdu way sixi jirtay oo meeshii wax ka khaldanaayeen ilaaliyayaal waxaa ahaa xisbiyada dimuqraadiyad bayna ku dhisnayd oo dowlad xalaal ay ahayd markaan runta u hadalno iyadoo tabar yar bay waxay gashay dagaalkii Ethiopia waxaan garanhayaa cabdirashiid cali sarmaarke markuu dhihi jiray gacanna waa ku diriraynaa gacanna voodkaan ku dhiibaynaa Ethiopia intay soo weerartay waa taariikhiyan waad u garanaysaan waa markaan lahaa cabdirashiid cali oo waxaa ciidi kugu lahayd alla ciseeyow calooshaada waxaa ku jira inaadan ciilin oo gaala igu cawumin cirku ha kuu muro iyo caalamkii arligoo curdiyo kuu xoojiyo caafimaad ku waar allow cimrigaagu kuu gaara ciri dambeeda cayuununaas oo dhan casar baa lagaaga dhigay cabdi oo calankaa lagu dhiibay cudud u yeed daa'uud xisti janankii ciidamada oo nin qaaliya ahaa oo wadaniya muddo aan sheekaysanaynay waxaan garanayaa weligay hadalkiisa qalbigayga kama bixin xaliimo ibuu yiri wadani asagoo ciil qabu dhintaa daa'uud xirsi wadani asagoo ciil qabu dhintaa ama waajibku lahaa asagoo gudan oo wadan gudan buu dhintaa buu yiri oo mawdku helaa ama waajibku lahaa oo u xaq u lahaa asagoo helin oo dalkiisa iyo dadkiisa ka helin buu dhintaa buu yiri hadal qaaliyo aha daa'uud wuxuu yiri sharciga waa ku diridayaayo diinka nabi maxamed baan daacad ugu socdaayo dalkayga wanaagsan darajaan la raadiyaa dooni mahayeelo gaalaha igu dari daa'uudo daacadaadaa dad wada rabaayo dalkaaga wanaagsan darajaad la raadisayo waxaad kaloo diiday inaad gaalo daba gashaayo ilaahay diricyo wiil diiqa kuugu keeno waxaad doonayso degdegsiyo kugu sahlo adoo daa'uuda aan dabaylahaa ku dhicina dalkaa soomaaliyeed gaalayayan degin ma ayan lahayn qabiil waxaanu ninka wanaagsan oo mas-uulkaana waanu ku ammaani jirnay dhaliil markaan aragnana waanu ka hadli jirnay oo waa ka doodi jirnay oo taasaa maqan iyo taasaa khaldan baan dhihi jirnay dowladdii taba waxaan garanayaa dastuurka aadan cabdille cismaan wasiir kasta mooshinka uu soo dhigo dastuurka buu aqriyaa dastuurka qodobkii aan waafaqsanayn karoos buu ku dhufan jiray ma ogolay waxaanad ka garan kartaa nabadgelyadii dadku ku noolaa inkasta oo gumaysi ku lifaaqnaa oo maalgelin hayay oo samaynayay asagoo muddadaas doorashaa la galay doorashadii cabdirashiid baa noqday cabdirashiid cali sarmaarke waa tii haddiiba cadowgu dilay markii waxaa ka dambeeyey 9 sano ay hayeen 9 sanana dalku nabad buu ahaa
إثيوبيا بامبر لا ديريدا markii ay kacaanku maxamed siyaad waxa la yiraahdaa reflection buu sameeyay afgambi buu sameeyay maxamed siyaad afgambi ma sameeynin maxamed siyaad qarankii oo madaxweynihiisii la dilay oo cid la yaala yuu qabtay oo badbaadiyay markaatina waxa ka noqon kara reflection meeshu ka dhaco dhiig baa ku daata maxamed siyaad wuxuu ahaa nin wadaniya oo fiican oo wadaniya oo wadanka waxa uu u qabtay nin u qaban kara uusan iman karinin qofkuna waa bino aadan ninka hoggaanka ahina wuxuu ku xiran yahay dadkiisii oo gumaysi ka shaqaynayo oo kala gadayo oo xisbiyo u furayo oo mucaarad u samaynayo oo dambi u samaynayo asaguna waa khaldami karay laakiin waxaa taala wuxuu qabtay oo wanaagsanaana waa in la qiro wixii ka xumaaday oo siyaasiyan uga xumaadayna waa in la qiro maxamed siyaad wuxuu ahaa wadani markaan runta u hadalno dalka intuu u qabtayna nin u qabtay ma jiro nin u qabanayaana ma jiro taariikhda ayaana qoraysa wixii uu dambi leeyahay diiwaan gaar ay leeyihiin laakiin waxtarkiisuna diiwaan gaar uu leeyahay waxaanad ka garan kartaa ummadda Soomaaliyeed oo maanta aad arkayso dalkoodii iyo dadkoodii sida ay u galeen yuu madax u ahaa markaasuu wuxuu ka dhigay ummad jirta dawlad Afrika oo dhan hogaamin karta bay noqotay waxaa la yiri tani haddii Afrika haysaan ku sii socoto Afrika oo dhan bay gacanteena ka bixin kartaa adduun weynuna waa taqaanaa maraan intirin hayay buraanbur baa waxaa ku jiray murtiday suugaanta mawraanka aan ku dhaho marxaladan kaadarkan muuqashada la rabo siyaasadan murugtay maskaxeeda taaganow mareeg midigta iyo bidixda galbeed iyo bar miisaanka ayaan rabin muhorad weeyaan haruura badweyn ku maqan marka waxaa weeye nabadna looma ogola dalkii hore u mara ama afrikaba markaan ka hadlayno laakiin Soomaaliya maxamed siyaad wuxuu gaarsiiyay xad uu ku xoreeyo afrika oo dhan ku xoreeyo markaasaa la yiri aan iska qabanno markaasaa ummadiisi loo adeegsaday markaasaa qabiil loo qaybsaday waxaan rabi lahaa inaan iraahdo waxaan gelinayaa iga raali ahaw Soomaalidu ha ka soo jawaabeen waa bay taagan tahay jiitin baan jiiday ta jiitin baan jiiday ta jiitin baan jiiday ga jiitin baan jiiday ta waa hal xiraale laga soo jawaab wow jiitin baan jiiday waa ka hooseysa ta jiitin baan jiiday ta jiitin baan jiiday ga ta macna weyn bay xambaarsan tahay qof kastana wax leh war waa maxay waxaas halaga soo hadlo 20 sano oo ugu dambeeyay waxaan waqti suugaanta Soomaaliyeed lagaga baran jiray iskuulada sare iyo iskuulada dhexe gabayo iyo garaaro badan oo adiga aad hal abuurtay hadaba maxaa gabayadaas iyo suugaantaas aad uga dan lahayd ama maxaa kalifay in lagu soo qaato waxbarashada dugsiyada iyo sidii ummadda Soomaaliyeed loo bari lahaa aad baa u mahadsan tahay laakiin adigu ardadii la bari jiray ma ku jirtay waxay ahayd madda markaan joognay anoo gunuucahaya oo maskaxdaydu ay curdan tahay oo rumaysan Soomaaliya maxay u midoobi weyday maxay u xoroobi weyday baa waxaa la sameeyay shirki OAU Addis Ababa la isugu tagay aadan Cabdillah noo tagay markii uu soo noqday oo Afrika urur sanaysatay Afrika inay iskaashato baa maskaxdayda bay fafaar ahaan u fiirinaysa markaasaa shacabka Itoobiya la laayay oo baabaha laga dhigay markaasaan ka hadlay taa waxaa ka mid ahaa waa tii Afrikaanku ururo la wada ogaayo waa tuu noo aaday oo aadan nooga yimid oo waa tii Addis Ababa lagu qaatay aaminimo waa tii lagu oday Afrikaanku isku aqal aaraadi iyo hadalka waa tii la wada ayidoo adduunka laga sheegay Afrikaanna wada saxiix Itoobiya waxa ka dhacay waa la wada arkay waxay ku ahaatay ay iftiimin karaan
marka aan sidaa leeyahay doollo iyo ceel cad iyo daarihii hawaash dariiqa qalaafe dhagax buurka dahabku yiil dusha shilaabo dig iyo daarihii jigjiga dadkeenni yiila iyo adduunyo wixii fadhiday dab baa lagu huriyo dagal qiiqa laguma oga diir xaraar male raggii daarta noo fadhiya dad iyo how soomaaliyeed waad ka daahan tahay waa dareen culusa shacabka wadan ugu istaag markaan buraanburkaa tirinayo oo aan sidaa leeyahay oo haddii afrikaanku ururay maxaaba naloo daay baa waana lay xiri jiray oo buraanburada qaar baan la ogolayn baan habeenkii dambe la yiri 6 bilood baa lagu xiraya haddaad mar dambe buraanburto markaasaan habeenkii dambe tiriyey buraanburkan waxaan idhi sidaan agoon korin hayo laygu wada ogaa sidaan agoon korin hayayo laygu wada ogaa eheladoodii dholkore ay ku kala lumeen abbahood dhaxal hal qura oo dii u ka tegay laygu wada eegtayoo xoog laygu agmaro aqalka kaadkiisa iyo ayda loogu jiro urku tallada calahooshayda lagu adkee sidii shiikh inaan dhalay oo ayaraha u dhigayo iskuulaad mariyo noloshiisa ubax ka dhigayo aflaxayo maalinta uun ku wada jeclayo khamriga urkiisa geliyo loo wada irkigay urku tallada calooshayda lagu adkee sidii odayina ma dhalay oo adduun tabcaday oo ayada laga qaaday geelu ku oomi jiro armigi iyo qalabkii lagu bobay orod rasmi oo aana hore nimanu doonaya arsadeen oo armigii laga dhaco aqalkii goblomay urku tallada calooshayda lagu adkee sidii gabar edab lahayd oo la wada ogaayo ay dhageel iyo rasaas awoodeed u xidhan oo la isku eedeeyay oo aabaheed jeclaa wiil arkooto qalbiga aamin oo la dhaco eegi kari weyday edabteedii waxay ahayd erayadii hore yarkii oodan la iska rogayo ur ku soo baxay oo hawadii ka oodan tahay urku tallada calooshayda lagu adkee haddii lay dilo haddii daaqad layga riday haddaan lay daynin ee eega lay daldalo wallaahi inaanan daynayn waxaan ka diday shibciga oo duban oo soo diyaar garow dunida maanta ee dariiqyaan ka marahayayo daakhil iyo fooqba dacwad baan ka celinayaa haygu diidna waxaan daawo noogu jirin marka waxaan ka hadlayaa 8 gobol oo dhisan iyo 3 maqan 5 agoontuna dhaxalka hasha qurihina waa calanka agoonta maqanina waa 3 maqan ceel kan beelad weyne iyo buuran iyo halkaan burca hargeysa iyo berbera beelihii fadhiya banaanka la asxaano bandarqaasin iyo qandala boosaasiya aylbad iyo beela iyo hurdiyadad iyo lagu beeray xorriyaad u baahan tahay basaastii oonkii baa kaaga jira badniga barashadii jaahilnimo waa ku baalaqdeen baroortii ciilkii bad baaqi weli ku tahay boogoodnaha kaaga tal waa la baanayaay haddaadan baaraynin noloshaada baaridka asaadan beenaynin baarlamaanka boqolka nin sidii harga boosha hadba aydin beecsadeen gidhays iyo godin laba iyo gaalkaciyo nugaalgiyiga xarar dheero ceelbuurka golaha weyngal dogob gallisoor hobyoon laysu gaari karin dad yahow lagu gooyay oo gees walbaba fadhiya wataa calan guudka laga tagay oo gingiman oo gumaysiga cadowga sumadiisa kaama go-in oo garashadii jaahilnima geesna kaama bixin oo geeslayd iyo geeli oonbay u go-ayeen oo gaajo iyo cudur dadkaagii barbaa u go-ay garawsha laga waa raggi geedka noo fadhiyay haddaadan garanaynin noloshaada gaasidka dadkooda kala geysyadii haydin kala gateen oo guhadi iyo ciil calooshaada ayay ka goy juba culya jilib jamaam oo dhan way isku jirayo jidka kismaayo jawaabaan ka celinaya dadka yagii joogay jir xoog lahay qabaan ninba jawaan badan oo beerka jara laha jilaal iyo dog diraac oo dhan jira laha in jeeba laga geliyo joornaalka lagu cadde generaal gaal cad bay jeebka kaga riteen jimsiga iyo ruuxa dhiigayga waan ka jaray jeclaan kari mahayo baarlamaanka jaahilka haddaadan u jeedin noloshaada waxaa jirraba sidii ari jeerin daaqa oo jiqhawda galo jiifhaag iyo haramcas weerkii jalleecayan intii u jidbaysanay haydin kala jabsado gudihii baan ka baxay digoolkii faras ma dhinac buu iduban hayaayoo dollarkii iyo lacagta dahab buu ku iibsadayo hadba ninkuu doono yuu daawo kula dhigtayo sidii geel dayr dhala buddooba ugu sitaayoo diir xaraar male raggii daarta noo fadhiyay dad yahow soomaaliyeed waad ka daahan tahay waa dareen culus shacabka wadanigu istaag dollarkii iyo lacagta dahab buu ku iibsadaa hadba ninkuu doonayoho daawo kula dhigtaa sidii geel dayr dhaluhu doobi ugu sitaa dir xaraar male raggihii daarta noo fadhiyay dad yahow soomaaliyeed waad ka daahan tahay waa dareen culose shacabkowdan ugu istaag dolla iyo ceelcad iyo daarihii hawaash
dariiqa qallafe dhagax buurka dahab ku yeel dusha shilaabo dig iyo darehe jegjega dadkeeni yilay iyo dunya wixii fadhiday daba lagu huriyo dagaal qiiqa laguma oga dhir xarar male raggehe daarta noo fadhiyay dad yahow soomaaliyeed waad ka daahan tahay ee wadaran colose shacabkowdan ugu istaag wajeriya Garissa ee walaaqaya ingiriisna waa marbacad dalkii Soomaaliya marna Ethiopia siin marna Kenya siin wajeriya Garissa ee walaaqaya weerariya armibaha weecda looga dhigay walaalka ragaanka dhiganay bayna waday wadnaha tirkiisi iyo wayradina jaray kollaadon wayda dahaynaynin wayadan waxyeelada maanta shicibka walaalka noqo marka halka marinayaan haweenkii raggii baan dhiliilay markaasaan haweenkii dagaal geliyay waxaan idhi duulemaha yaanu rago wadan bayn haya dantiisa kama badiya oo waysdulaalayaan darihiya suuqa dambiya derbiyaasha hay fadhiyo dambisha haw qaado ilmihii hadalan dasheen ana digtoonaada dumarkan ku odhan haya waa inaan dababaad warsado dowladaha xorta dayuurada migagiyo armi aan dalbado dadkayga u hisho wadankayga daafaca waa inaan la dagaalamaha dowladaha galbeed oo intay isduqaynayaan aan duleediya Ethiopia isleenaysay oo dolay iyo jiracle intaa joogta aan dubtaa horu kicini haruur bay ku iibsadeen hoosino celiya nimankan ku hiran lahayn raggu ha hegnaado meesha haruur ku yaal hunguri ha ku raadsadeen haybti iyo qabiil warya reer hebelay iyo haysu habar wacdeen haddaan sadhig hobanaynon halaag dhacayn wajeerey calanka hoho dowlad laguma helo hadal ma yaalaha weheenkiinow madkacdaan himada iyo dhiga hawad oo dhan mad dhigtaan hubka intaad qaadataan mad hawaas gashaan rabbaydiin hiilinahaye naftaan hudhaan oo dadkiina habqamaya hilbihiisa urursataan taariikh ahaan Soomaalida inkastoo ay yihiin dad u dagaalama ama u dirira gobonimo doon haddana la soo darseen marxalado kala duwan kuwa iskugu jira kuwa isticmaar ah iyo kuwa lagu damcayo in lagu baabi'iyo ama lagu kala qaybiyo waxay uga fikiri waayeen markii ay heleen gobonimo iyo dowlad maxaa koosgareeyay ama sababay in burburkan iyo dhibaatadan iyo wixii la mid ahaa marxaladaha duwan ay soo kala mareen in ay ka fikiraan dadka waxgaradka ah ee dadka suugaanta hal abuura iyo dadkii xilligaas u dhex jiray siyaasadda Soomaaliyeed aad baad u mahadsan tahay Faisal waxa weeye waa arkaynay dhibaatada wixii wax garanaya dadku waxa weeye waxaan wax garanayn iyo wax garanaya marka dadkii wax garanayay ama garanayay gobonimadu qiimaha ay leedahay iyo xorriyadu iyo daran gobonimada iyo xorriyada ba aqoonin oo reer miyi aha oo waxay ku kacday iyo waxa ku baxay iyo waxa ku lumay midna aan ogeyn iyo baad Soomaalida ku badan marka waa ka hadalnay laakiin hadeed yaa wax naga maqlaayay aan ka hadlay 85 waxa kamid ah waxyaalihi aan isaga hadaaqayay wariyaan geliyo loodiyo la iska gubin guryaha wariyaan bakharada gingimaan gaata laga jalan warya gel maalin qarankii hadduu gabdho oo gumaysigu shala ka yimid gadi loogu raro waxaan ka dhigayay magool waxaa la yidhaahdaa geela inkastoo dadkaan dambe ayaan aqoon af Soomaaligaba marka waxaan ka dhigay magool gobonimadii magool waxaa lagu dhaqahaa hal marxalada badan oo magool waxaa lagu dhaqahaa hal marxalada badan marbay deegaantu marta marsada guryaha kurayada maraqawga dira xanan mulaax oo mayraceediyo la joogeedu magansada hadduu muriya sibir dhunka halmaanta yahay malmala Soomaalay maqala maslaxaadinu waa midnimo
marbu gugu wuxuu marahaa dhowrhayaan mugood oo marbu gugu wuxuu marahaa dhowrhayaan mugood oo barbaar dabku madagu yahay buu micinsadaa oo laba goo midab casiyo qata bira mulkiya ee hadduu muriya sibir dhunkaal maanta yahay malmala dad yahow maqalo maslaxaadinu waa midnimo marbu abaar magacyo dheer maamulka raba oo marbu abaar magacyo dheer maamulka raba oo maahirololkeedu ku didin gogol macaan ee madada caynabara kuluulo darka u malmala xarga ismaray muran dagaal maahir waxay ku hiran milawal waale ragahan kaalinteeda marin hadduu muriyo sibir dhunkaal maanta yahay malmala dad yahow maqalo maslaxaadinu waa midnimo marbu colaad laysu mari waayay muran gala oo marbu colaad laysu mari waayay muran gala oo muruku taaglaynta hawolo macaansada oo geesi magacliyo nin ragaameeyey loo dhahaa muskiisiyo damadhinkuugu jira hadduu muriyo sibir dhunkaal maanta yahay malmala dad yahow maqalo maslaxaadinu waa midnimo murtida suganta mahuranka aan ku dhaho marxaladan kaadarkahan muuqashada la rabo siyaasadan murugtay masreexeeda taaganow midigta iyo bidixdu miisanka ayan rabin mahorad weeyaan haruhuura badweyn ku maqan mareegtan siriiqdeedii ku haabowsan tahay malkada mugdi hamayni oo cirka haamayga kugu onkoday mahayo hahmayiyo helay meesha kugu habboon markaad oranaysa maskax bay u baahan tahay hadduu muriya sibir dhunkahal maanta yahay malmala soomaalay maqalo maslaxaadinu waa midnimo su-aashayda kaleeto waxa ay tahay maadaama soomaaliya burburkeedii uu kasoo wareegay 14 sano kadibna soomaalidii ilaa hadeertaan aanan u hagaagin wax dowlad ah ama wax maamul ah 12 shirna loo qabtay soomaalida in lagu heshiisiiyo marka maxaad u malayn kartaa dhibaatadan soomaaliya maxaa hortaagan ama maxaa caqabad ku ah sidii ummadda Soomaaliyeed ay u soo hanan lahaayeen midnimadoodii iyo qarannimadoodii aad baad u mahadsan tahay markaan runta taabano oo xaqiiqda inaan ka dhuman ummad qabiil iyo qaran horta meel ma wada galaan shirarkaasi waxay u burburahayeen qabiil jacayl qabiil marka lagu xisaabtamayana qaran maba jiri karaba mitaal markaan kaaga soo qaado Soomaali oo dhan oo urursani midnimo calankii ay ku dhaliyeen Soomaali oo qabiil ah oo 200 oo qabiil ah 200 oo calan ma yeelan karaan jawaabtu waa maya marka anigu waxaan ka soo horjeedaa sideedaba in qabiil wax qaran lagu daweeyo qaran dumay qabiil ma daweeyo marka dhowr bayd waan ka iri shirkii carte markii la qabtay anigu waxaan ahaa dadkii markii hore qalbiga u taagay oo aad niyadda ugu culay laakiin markii ay qabiil hal lagu qaybsaday yiraahdeen bandulka ku dhiftay maxaa yeelay qabiil waana burburiyay dal iyo qaran iyo sharaf iyo karaamo midna nooma soo celinayo midnimo qaran lagu dhisan qaadano hantinay calan qabow baanu lixdankii ku saaray qurux bulshadu ma qawadina xorriyay ku wada qanceen gumaysigan qusan baa qaybiyo qarribay wuxuu ku qarabtay been lowya aan qadarin qabiilkii dumiyey mar haddaad qareen u tahay shirka carta u qaadan mayne qadka u banee inkastoon leeyahay hal qodob buu faa'iido ku lahaa halka qodob oo faa'iidada ku lahaa laakiin intii ka horeysay khasaaradii Soomaaliya gaadhay miduu u geystay baa ka darnayd halka qodob waxa weeye 10 sano haddii aan dawlad lagu dhisan calankeenu dib u noqon lahaa marka calankii bay badbaadiyeen kaliya laakiin faa'iido kale ma ayan keenin carte iyo
iyo qabiil war qabiil qaran faa'iido uma leh marka waxaan idhi sida waxaa gobannimo xanaaneeya ragan xaqirin oo waxaa gobannimo xanaaneeya ragan xaqirin oo waxaa xilkeed qaadi karaa howlkar lagu xamdiyo oo waxay xulataa wadani aan xumaan ahayn oo nabadda iyo waxay ku xayaataa xumaan la'aan oo waxay xakamaheeda surata xabiibu roon midnimada ay ku xaragoota xaqiiqadee inta hadday weydo ma jirto qaran baan leeyahay waxaa gobannimadu ku xisaabtantaa xushmada oo waxay gobannimadu ku xisaabtantaa xushmada xiqdiga iyo beenta xaaraanta laguma dhoqo ragan xaqirin oo ilaashay la xaaltantaa waxay xakameeda surata xabiibu roon wadaniyaan xorin bay xer wadaag yihiin midnimada ay ku xaragoota xaqiiqadee markaasaan idhi shir lagu dawooba dib dambeeta ugu cayina oo kani wax dhalin maye oo shir lagu dawooba dib dambeeta ugu cayina ergooyin degmi iyo gobolla ka socda ha soo degeen dudada isimadidii doono duceeya dhaha waya arag indhergaradan dayahaysnayn danta u bandhiga siyaasiyiinta dabadda quban doona oo ku dara waya araggii dudada radiyo ku dara dagaalyahanada wadaniga dadka uga yeer yan dooxeeya dumiyayaan ee xadarajadayn dooxeeya dumiyayaan ee xadarajadayn ciidamadii qaranka dohoon oo xidya u dajima hubkay shibcigu dadaheeyeen dib haw gureen xeryihii loo dayray degdeg hawgu ururiyeen yaan dhiig dambo daata soomaali dib ugu noqon dinta islaamka iyo sharcigu hayna dadasheen qaran waxaa lagu dhisahaa waa aqoon qorxoon oo qaran waxaa lagu dhisahaa waa aqoon qurxoon oo waxaa lagu qaliyaheeya aqoon qadiman oo qabiilka laga fogaheeya xaqiiqda qoran oo midnimada loo qorsheeya ha qaanacde cadaalada qorishid hawsheeda lagu qabtaa qaylad iyo beleda qalaalaas lama hordhigo soomaaliya qarankii u istaaga oo qurxoon oo qabiilka ka saaran niyadina u qaribay waa qabyee nabadu qalaab qaada qaran dhismihee allow isu imadka soomaaliyeed ajiib oo allow isu imadka soomaaliyeed ajiib oo allow sharka nabaga oodaya idan ilaah oo allow nabad baanu oone aslaaxna sii oo allow hubka nalaga uruursho ammaan la helo oo allow soomaali ka iidla iblays wax dila oo allow ragga nago arrimeeyo la wada aqbalo oo allow khayraadka yaga aasan soo ifbixi oo allow nimcada aradka yaga oonka nooga saar oo allow anuubadka qurbadanka urursanaa oo allow sharafkii agoontoobay ududsadaa allow awoodada anu dinta ku aflaxnaa ay burburtay dowladii hore ee Soomaaliya kuwaas oo ummadda Soomaaliyeed ay ku dhacday barakac aad iyo aad u weyn qaar u soo qaxay qurbaha qaar aan qurbaha soo gaarin intayna soo gaarina ku dhamaadeen xeebaha iyo badaha iyo qaar ku dhinteen saxaraha ayagoo u dhinteen haraad iyo cunto la'aan iyo qaar weli u soo socdaan inay imaadaan meelahan iyo qaar aan weli raqdooda meel ay ku dambeeyeen aan la ogeyn iyo qaar ku dhibaataysan ilaa iyo haddeertaan qurbaha marka sidee ayay kula muuqataa waddankayagii burburka ku dhacay wuxuu geystay dhibaatooyin badan oo soomaalida ku dhacay oo weliba caymatir aan u bixiyay anigu markaan kaaga soo qaado ka hadalka puntland markii ay shiraysay ayaan cajaladu sii dhiibay buranbura dib baan ka diiwaan gelin doonaa markaasaan waxaan ku idhi shirka puntland waxaan ku bandhigahayaa
dadkii bannaanadu baroor bay ka siman yihiin shirkii baarliinna loo bob sidii ka badan bililiqaysigii ilmahan jiifka bogan lanahay waa bonun gurigeed waxaan qaadanaa bishii ma nihin biducaadan sharafkooda buuxsan karaa badi doon calankii qarankii dalkii burburay badbaadsha soomaalinimaadii aan soo baxnee shirka buntlandow waxaan ku bandhigahayaa oo shirka buntlandow waxaan ku bandhigahayaa besa kaniisada dhiliyo dhowrda yuusbaxshaan markii hore waxaan ku alifay wax kale oo raggu necab yahay anna nebahay marka isimadan ka baqay inay iga naxaan marka waan bedelay alifkaygii shirka buntlandow waxaan ku bandhigahayaa besa kaniisada dhiliyo dhowrda yuusbaxshaan dad badanoo badawahaa mooday duni barkeed anna birsan liqahayaa beerku ila gubtaa jilka baxsadayba wadnaha boogi iiga taal waa bonhun gurigeed waxaan qaadanaa bishii manihin binu aadan sharaftooda buuxsan kara badi doon calankii qarankii dalkii burburay badbaadsha soomaalinimaadii aan soo baxnee marka waxaa imaanay dal aanaan lahayn markaasaa waxaa nala yidhi oo kaba ma qaadan jireen fargeetamayaad wax ku cuni jireen oo see u barateen inaan kuraasta lagu fariisto oo musqusha see u fariisan jireen waxa weeye burbur qurbada dagaalka burburka dalka iyagii quur uu noo keenay weeye wax laga yaqyaqsado oo laga caroodo weeye walow soomaalida qaarkeed ku qanacsan yihiinba anoo ciil u go-aya oo meel aan wadda aan maro ula yurub yaa waxaa la iiga yeedhay nin yurub wiidhisha oo muslina oo nin aad muslimanimada ugu dheera oo gabar soomaaliya guursanayay arooskiis markaan arooskii tiriyey muddo oo aan waday arooskii oo diinta ka hadlay oo dhaqanka ka hadlay oo gabadha danajiraa tiri idhi oo wax walba aan idhi ayaan waxaan gashaday habeenkaasaan waxaan helay yurub furihii aan isaga celin lahaa markaasaan 3 bayd gashaday waxaan idhi walaalow dumarka yaga dabadaad hantiday soomaalidu dawlad culus bay ahayd duddadu khayraadihin duunyadaha badalkayga yiil damis xariir iyo bustaan baan dul seexan jiray qaran dugsoon calan dul suraan dawlad laanahayn dagaalyahan ciidan dalkuu faanayaan lahayn boolisu degdega dunuubte dhacdaan lahayn sharcigo daba jooga dembi kifalaan lahayn ditorra boqolaal kun iyo jaamacada degdega masaajida diinta warshadan ku dogsan jiray elsiyada dabado durbaaso degan lahayn dekada waaweyn oo lagu dadiyaan lahayn dukamiyo ganacsi dildilaansadaan lahayn dadweyne ka iibsadoo dacadaan lahayn dalaga beeraha iyagaad soo daldalan jidheen dagaalada gudaho badawinta loo dirsaday dalka burburina hayadayacadda noogu wacan dihal iyo gajanama kelin dalalka yurub nabadayada dhaadataa dolka noogu wacan dagaal dad banbanu ku qabna dalkiyo dudada dembiga laga gelayo rifuujuga igama degeen dawlad afrikaan oo dal wanaagsan laanahayn oo dawlad afrikaan oo dal wanaagsan laanahayn hawada dahabka oo afrikan ku dirsan jiray cadcedii diiranayd baan u dudahayaa hilbaan doofaar ku jirin baan dordooran jiray raashin lagu darayo khaansiir ma doonan jirin naftaydan didaysa deganaan ma waayi jirin hurdada kebdha duuga dusha layma saari jirin dagaalada gudaho badawinta loo
dirsaday dalka burburinaya dayacada noogu wacan dihal iyo gajanana keenin dalalka Yurub nabadayada dadata dalka noogu wacan dagaal dadman baanu ku qabnaa dalkiyo dudada dambiga laga galaya rifuujiga igama degeen wardaanyeeramanin madaanyeerada geedaha korkooda saxansi dhanbaana lagi daanyeeramanihin oo dhirtu nooma noqon degaan dad sharaf loo magaco dayax nuurkilaan ahayn afrikada dihin jirayoo dowladan ahayn qaradaha dunida laga daawadan ahayn dayarada badan maraha kibadaan lahayn badwayn maalbadani buuxan lahayn biyaa webiya budbutaaco ambasaasin baan lahayn baya iyo donya laga buuxiyaan lahayn xolo geel baarlelo baana xidhaan lahayn aryahayago baho aanu beecsanaan lahayn fardaha lagu badartamoon buubsanaan lahayn banjoogta ugaarto boqol jara aan lahayn baahe yorob waxaana baday waa dagaalka baas waa bilade gabadhanada barkuyo ko dheceen waxaan caruusyada cayaartooda tumi lahaa qarankiyo cawa rabicayn iyo cisile soomaaliyo calan laho calankoo birmaday dintu tahay ciidan oon cod la kala dhacayn dadkii yahay cadiyo caafimaad ku dego cawantiyo yayda moryanta laga casilo jiriga iyo casigii toobad celin hayaan oon caydha Yurub anigu uga dhafo meel cisile oon cagaha dhigo ciidayadii oon colad lahayn on derin casani iyo barkimo gedcilaa la tago oo caruurtaydii banahaanka cayaarayaan on cagaha budiga ciriirya cuslaynahayn oo cadced iyo laydhu isukay celcelin hayaan on caanihi iyo hilibkii ku durdurto wada cusba banintan xamdi celiyo halaabura curen lahaa waxaan caruusyada cayaartooda tumi lahaa dadkiyo toobad celiyon colaadi jirin on caydha Yurub anigu uga dhofo meel cisile on cagaha dhigo ciidayadii on colaad lahayn oo daruuruhu i curtaan oo cirigu daa on cagaha rasgeliya jirku caafimaad ka helo cagaarkiyo saxan saxadu i cadfan yihiin on caanihii dararay ku durdurto codkayaga on curdankii geedaha ka baxay saacad cuno on ciidanaadi qodano khayraadka cayn walbaba shidaalka cegaga maanta shirkada codsado dahabka cerin birtiyo dheemankuba curtaan caddaan iyo madow khalqigo ciidan oo noqdaan sharafkii ciidabay ummadeenu soo ceshaan barintan xamdi celiyo hal aabura urin lahaa soomaalida ama shirar ha u fadhido ama baldaanka ha ku kala noolaato ama dabad ha jirto ama dalka gudihiisa ha jirte waxaan leeyahay war wallaahi oo billaahi oo tallaahi waxaad midnimo ku weydeen inaydnaan qaybsanaan ku helayn war waxaad qarannimo ku weydeen inaydnaan qabiil ku helayn waxaan leeyahay midnimaha loo noqdo qabiilka waqti ummadihii yiqin waaba ka tageenba waa horayba ka ilbixeen innaga maxayna agdhigay inkaarqabaha kan war qabiilku wax ma daweeye waxbu dumiyaa qabiilku waa geed abuurkiisu gooni yahay oo gubata oloshiyo abaar buu ku gaamuraa waa gelgelin iyo habaas meel xungeed ka baxay qofkii u gargaaray qaran buu gablamin hayaa laguma guulaysta soomaaliyay ka godob qabiilku waa mayd aan aasmaynin oo maryala qabiilku waa maydaan aasmaynin oo maryala muruga iyo dhimasho iyo weerar iyo mishkilo masiibada weeye sarkaasayga lagu masalo muslim wixii gaala sheegta markhaatiga maslaxad iyo nabadda khayrku mamnuuc ka yahay soomaalida lagu macsuumayse u milixsateen ka taga baan leeyahay qabiilka midnimo Soomaaliya ha noolaato midnimana ha gaarto qaranna Allah u dhiso qabiilkana qalbigooda Allah ka tirtiro nabadgelyo